إن arrimaha waddanka Ethiopia haddii ay noo galno sanadka food ee nagu soo haya ee 2020 waxa la filayaa in doorashooyin ay ka dhacaan dalka Ethiopia guud ahaan inkastoo shaki badan laga muujinayo sida doorashooyinkaasi ay u dhici karaan adiga aragtida doorashooyinkaas ma dhacaya aniga aragtida doorashooyinkaasi inay dhacaan inay dhicin waxay ku xirnaan doontaa dhacdooyin ka dhaca markay noqoto sida doorashooyinkaasi ay u dhacayaan xisbigii EPRDF waxa lagu bedelay xisbi kale oo EPP la yiraahdo xisbiga ladnaanta Ethiopia oo deegaanka Soomaaliduna uu ka mid noqday soo ma noqonayso in marka EPRDF lagu bedelay EPP oo ay samaysmayaan qowmiyado kale oo shuraaka ku ah xukunkii dalka Ethiopia xisbiga anu qayb ka nahay sad la socota awal EPRDF waxa ku goobay 4 gobol 9 gobol dalku ahaa 4 gobol xisbiyo ka jira ku goobay kan hadda 8 gobol ku jira hal gobol ma soo gaday sida aad ka warhayso walaa xoog leh ayaa jira oo ku saabsan xaaladaha Ethiopia ka jira guud ahaan oo la leeyahay ma aha isbedeladani qaar caga adag wali ku taagan walaa sidaas sidoo aragtaa madaxweyne walaacaasi wuxuu ku salaysan yahay la raaciyaa fiinaan lahayd dadka hadda ka hadlaya caga kuma taagnidu waa dad yar pessimistic ah Soomaalida iyo Oromada dhibaatadii u dhaxaysay xageem ka maraysa isku siyaasadeed baahay oo isku dhac siyaasadeed oo ujeedada siyaasadeed laga leeyahay oo xukuumadii markaa jirtay ay ku cibir dheeraysay waxaan ka warhayaa in dhawaan baarlamaanku ay dalbadeen in la qabto kulan lagu la xisaabtamayo dawladda dhowr goor uu dib u dhacay muxuu kulankaasi u qabsoomi waayay taaliftigeeda qaabka communication han wararku u baxayaan qaab ay dadka mucaaradkii ay wadaan maadaama yahay waxa laga yaabaa xaqiiqada jirta inaan